Waa jasiirad ay yaalaan sanamyo aad u waaweyn balse aan la aqoon ciddii samaysay iyo sida ay ku samaysay. Waana jasiirad wareerisay cilmi-baarayaashu inay wax ka ogaadaan waxyaabaha dhexdeeda ku sugan. Daawadayaal, ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta oo aan uga hadlayno jasiiradda yaabka badan ee Easter Island. Jasiiraddan ayaa waxaa loogu yeeraa laba magac oo kala duwan, waxayna labadaas magac kala yihiin Rapa Nui iyo Easter Island. Waxayna dhacdaa dhanka koonfurta badweynta Paasifiga, waxayna hoos tagtaa dalka Chile. Sahamiyihii ugu horreeyey ee soo booqday jasiiraddan wuxuu ahaa Jacob Roggeveen, wuxuuna jasiiraddan soo gaaray sanadkii 1722 isaga oo u bixiyey magaca Easter Island. Jasiiraddan ayaa ku fadhisa bad dhan 123 kiilomitir oo isku wareeg ah, waxaana jasiiraddan yaala sanamyo waaweyn iyagoo qaar ka mid ay ku dhex duugan yihiin jasiiraddan. Tirada sanamyada ee dhex yaala jasiiraddan ayaa waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin 887 sanab, waxaana sanamyadan lagu magacaabaa Moi. Sanamyadan ayaa loo maleeyey in keliya ay yihiin inta kore ee madaxa ah, balse 2012 ayaa la ogaaday inay yihiin kuwo dhammaystiran, waxaana culayskooda lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin 90 tan. Waxaana la sheegaa in sanamyadan laga sameeyey walax lagu magacaabo taaf oo ka samaysanta qiiqa volkaanada. Qayb ka mid ah sanamyadan ayaa dhabarkooda ku aadan dhanka badda, wejigoodana waxa uu ku aadan yahay gudaha jasiiradda, waxaana dadkii hore ee deganaa jasiiraddan ay ka rumaysnaayeen inay yihiin kuwo badbaadinaya jasiiraddooda. Sidoo kale waxaa jira sanab ka duwan sanamyada kale, waana sanabka keliya ee lagu arko jasiiraddan, kaas oo jilba jabsan. Sanabkan magaciisu ayaa ah Tukuturi, waxaana sanabkan uu soo dhoweeyaa muuqa bini'aadamka isaga oo ka duwan sanamyada kale ee aadka u waaweyn. Sanabkan ayaa wejigiisa laga aqoonsan karaa sida inuu leeyahay gar, wuxuuna sanabkan dhirirkiisu gaaraa ilaa 4 mitir, halka culayskiisu uu yahay 10 tan. Sanamyadan ayaa waxaa sameeyey dadkii deganaa jasiiraddan ee ahaa reer Rapa Nui, waxaana samayntoodii u dhexaysay qarnigii 13aad ilaa iyo qarnigii 15aad. Inkastoo sanamyadan ay aad u waaweyn yihiin ayna adag tahay in dad yar ay qaadaan, ayaa dadkii sameeyey waxay isticmaali jireen hab ah inay 3 xarig ooga kala xiraan 3 dhinac ee gadaal, dhanka bidixe iyo dhanka midige, iyaga oo saas ku socodsiin jiray halka ay doonaanba ku geen jiray. Tirada dadkii deganaa jasiiraddan ayaa lagu qiyaasaa inay ahaayeen 17,500 oo qof, waxayna quudin jireen bardhada iyo kalluunka. Dadkii deganaa jasiiraddan ayaa la sheegaa inay u baabeen dhowr siyaabood oo kala duwan, waxaana ka mid ah inay bilaabeen xaalufinta dhirta si ay geedaha ugu adeegsadaan inay dhaqaajiyaan sanamyada aadku waaweyn ay sameeyeen, taas oo keentay inuu nabaad guur ku dhaco deegaankooda, ayna ku adkaato beerashada, iyo inay waayeen alwaax ay u adeegsadaan samaynta doomo si ay ugu soo kalluumaystaan. Markii ay waayeen wax ay quutaan, ayaa dadkii bilaabay inay isdilaan oo ay dhexdooda isdagaalaan iyo inay iscunaan. Waa run, waxa ay bilaabeen inay iscunaan. Sidoo kale waxaa la sheegaa in dadkii deganaa jasiiraddan ay u baaba'een cudurro safmar ah awgood. Xilligan la joogo, jasiiraddan waxaa u soo dalxiiso tago in ka badan 100,000 oo qof sannad walba si ay wax uga ogaadaan waxyaabaha dhexdeeda ku sugan ee ay ka mid yihiin sanamyada aadku waaweyn ee Moi.